muxuu Robin Amorim ka yiri guuldaradii xanuunka badneed ee kooxdiisa ka soo gaartay Everton. Tababaraha Manchester United Robin Amorim ayaa qirtay in kooxdiisu aysan weli gaarin heerkii looga baahnaa si ay ugu tartanto boosaska ugu sareeya ee horyaalka Premier League kadib markii ay hal iyo eber uga awood sheegatay Everton oo ku sugnayd garoonka Old Trafford. Amorim ayaa sheegay inuu si cad u ogyahay heerka ay haatan kooxdu joogto, isla markaana uu dareemayay intii lagu jiro safarkan in ay soo bixi karaan natiijooyin kala duwan. Waxa uu yiri, waxaan arrintan ka hadalnaa waqti badan. Waan ognahay heerka aan joogno hadda, waana dareemayaa intii lagu jiro kulamadan. Ma gaarin heerkii aan filayay xitaa uma dhawin. Heerka aan u baahannahay si aan ugu dagaalano boosaska ugu sareeya horyaalka. Si aan u guuleysano waa inaan noqonaa kuwo toosan, balse taas ma aysan dhicin maanta. dhinaca kale, taageerayaasha Manchester United oo dalbaday in la iibiyo hal ciyaaryahan kadib guuldaradii Everton. Taageerayaasha Manchester United ayaa dalbanaya in la iska diro hal ciyaaryahan kadib guuldaradii hal iyo eberka ahayd ee kooxdu kala kulantay Everton garoonka Old Trafford. Everton ayaa hoggaanka ku qabatay gool qurux badan oo Kieran Dewsbury Hall dhaliyay qaybtii hore. Wuxuu ahaa habeen murugo u ah kooxda Robin Amorim oo inta badan ciyaarta ka soo horjeeday Everton oo 10 ciyaaryahan ku ciyaaraysay. Inkasta oo Everton ay 10 ciyaartoy ku dheelaysay, United ma aysan jibin difaacooda, taas oo taageerayaasha ku dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan qaabka weerarka ee kooxda. Joshua Zirkzee oo bilowgiisii labaad ee xil ciyaareedkan sameeyay ayaa si weyn loo dhaliilay kadib bandhigiisii liitay. Weeraryahanka Dutch ah ayaa helay 2 fursadood oo fiican qaybtii labaad, balse Jordan Pickford ayaa labadaba ka badbaadiyay, mid uu geeska hoose ku laaday iyo mid kale oo si fudud ugu garaacay goolahayaha. Taageerayaashu si adag bay u weerareen Zirkzee. Mid ka mid ah ayaa qoray, Zirkzee fursadii uu dalbaday uu helay wuuna iska khasaariyay. Qof kale ayaa yiri, in Zirkzee garoonka lagu hayo 90 daqiiqo waa go'aan aad u xun. Taageere saddexaad ayaa yiri, Zirkzee waa inuu baxaa bisha Janaayo. maalin wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biiro ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.